daawadahayga kusoo dhawow challenge-gan cusub waxaana wada Mr Beast waxa uuna dhigayaa $500,000 waxa uuna dhahayaa qofkii lacagtaas difaaca karo ayaa lacagtaas qaadan doono challenge-ganna waxa ka qayb qaadan doona wiilkan sidoo kale challenge-yadan haddii aad ka heshay fadlan subscribe noo saar channel-keena si aan u soo badino challenge-yadan oo kale oo qurux badan challenge-ga waxa uu ku bilaabanayaa wiilkan waxaana la siin doonaa kaarkan waxaana leeyahay waxaad ku soo iibsan kartaa wax walba oo aad u baahan tahay si aad lacagtaas u difaacatid wax walba oo u baahan tahayna waa ku dhisan kartaa wiilkaana waxa uu aadayaa suuqa si uu u difaacdo lacagtaas $500,000 uu siinayo Mr Beast kadibna waxa israacaya Mr Beast waxa uu aadayaa dukaanka si uu u difaacdo wuxuu wiilkan aadayaa dukaanka kadibna waxa uu soo iibsanayaa baabuur iyo waxyaabo waaweyn sababtoo ah 3 challenge ayaa la ciyaari doonaa challenge walbana waxa lagu gubi doonaa lacagta challenge koowaad waxa uu ahaan doonaa taangi marka wiilkan wuxuu isku dayayaa inuu taangigaas lacagtaasi uusan ka gubin waxa uu isku dayayaa inuu soo iibsado container iyo waxyaabo waaweyn sida booyada biyaha ku jiro gaari iyo containero alwaax ku dhex buuxaan iyo waxyaabo badan uu ku difaaca karo $500,000 sidoo kale waxa uu garaashada kasoo iibsanayaa gaariyaal waaweyn iyo gaariyaal duqoobay kadibna waxa uu isku dayayaa inuu dhiso meel uu ku ilaali karo lacagtiisa waxa uuna u wacanayaa injineero waaweyn si uu lacagtaasi ugu badbaadiyaan wiilkanna waxa uu dadaal walba u galayaa si uu lacagtiisa u difaacdo Mr Beastin waxa uu bilaabayaa geemka koowaad waana taangi 5 taangi ayaa geemka koowaad ka qayb qaadan doonto taangi walbana waxa uu ridi doonaa 5 xabadood wiilkanna waxa uu sameynayaa wax walba oo alaabtiisa ku difaaca karo lacagtiisa uu ku difaacan karo Mr Beastin waxa uu dhahayaa waxa la gaaray waqtigii geemka koowaad ay ciyaari lahayn wadahayga Mr Beastin wiilka mar walba u booteenaya waxa uu u sheegayaa inuu ka guuleysanayo oo wax walba uu dhisay oo lacagtaas uu ku dhisay korkeeda uu dumin doono wiilkanna waxa uu ku booteenayaa asagana inuu lacagtiisa difaacan doono Mr Beastin waxa uu na tusayaa xabadaha taangiga ee lacagtan lagu gubi doono wiilkanna waxa uu ku kalsoon yahay injineerada haddana waxa la galay qaybta koowaad ee geemka waxaana la isku diyaarinayaa in la ciyaaro Mr Beast iyo saaxiibadiisna waxa ay ku ridayaan xabadihii lacagta laakiin lacagta waxay u muuqataa markaan in dhismo adag lagu dhisay Mr Beast iyo saaxiibadiis waxay u maleeyaan inay gubi karaan lacagta laakiin ma u maleynayo lacagtaas inay gubanayso maadaama injineero aad u khibrad badan ay ka qayb qaateen challenge-gan wiilkane asaga xataa wuxuu ka qayb qaadanayaa inuu rido taangiga oo waxa loo dhiibayaa xabadda ugu dambaysa inuu ku rido lacagtiisa laakiin wuxuu isku qabaa kalsooni aad u badan lacagtii ayaa la aadayaa markaan in la soo fiiriyo laakiin wiilka waxa uu hubaa lacagtiisa inaysan gubanayn maxaa yeelay waxa uu ka hormariyay biro aad u adag iyo containero iyo alwaaxyo lacagtiina ma guban daawadahayga ay arkaysaan laakiin markaan waxaa la gali doonaa challenge-ga labaad waxaana loo sheegay inuu haysto 24 saac Mr Beastin waxa uu markaan sameyn doonaa bombo aad u xoog badan waxa uuna yiri bombadan haddii ay lacagtaada ka badbaado waxa ku guuleysan doontaa $500,000 wiilkan waa uu booteenayaa oo wuxuu leeyahay markaan waxaa dhisi doonaa midii hore mid ka xoog badan waxa uuna mar labaad aadayaa suuqa si uu u soo iibsado alaabo uu ku difaacdo lacagtiisa Mr Beastin waxa uu diyaarinayaa qaraxa si markaan uu u gubo lacagta $500,000 markaana wiilka wuxuu u sheegayaa Mr Beast inuu dhisan doono meel midii hore ka xoog badan oo aad u awood badan injineeradan waxa uu sheegayaa qaabka ay u dhisi lahaayeen waxa uuna ku darayaa haamo waaweyn oo ay ku jiraan biyo si daawadahayga aysan xabad uga soo dhex bixin ama qarax uga soo dhex bixin waxa uu nala shaqeynayaa injineerada si wax walba ay ugu muuqdaan okay markaana Mr Beast sidoo kale waxa uu diyaarinayaa asagana qaraxii uu kusoo ridi lahaa lacagta kadibna waxa uu doonayaa inay ka gubato $500,000 wiilkaasna uu ka guuleysto laakiin wiilku waxa uu sheegayaa inuu markaan in lacagta sidaas fudud aan lagu gubi karin waxaana loo sheegayaa inuu 5 daqiiqo haysto meeshana wuu rusheynayaa si qaraxa uu biyaha ku qaboojiyo laakiin markaan Mr Beast waxay aad uga fogaanayaan goobta waxaanu u sheegayaa qof walba inuu ka soo baxa meesha maadaama qarax weyn lagu soo ridi doono wiilka iyo Mr Beastina waxay aadayaan meel ka fog goobta wadahayga markaan Mr Beast wiilku waxay diyaar u yihiin wajiga labaad inay ciyaaraan waxaana wiilka markaan loo sheegayaa inuu mar labaad gacantiisa ku qarxiyo lacagtiisa haddii uu qarxiyana ay lacagtiisa gubato wuu khasaarayaa haddii ay lacagtiisa guban weysana waxa u badbaadaya $500,000 wuxuuna halkaas ka qaadanayaa $500,000 wuuna qarxinayaa kadibna holac aad u weyn ayaa meesha ka kacayo oo qaraxa aad ayuu u xooganaa Mr Beastin waxa uu maleynayaa inay lacagta gubatay wiilka xataa asaga wuu isku naxayaa wuuna cararayaa wuxuuna qaadanayaa baash dabdamiska markii uu goobta tago waxa uu daminayaa dabkii waxa uuna fiirinayaa inay lacagtiisa gubatay wax walbana wuu ka wareejinayaa sida containerada iyo albaabada meesha uu dhigay kadibna waxa uu arkayaa inaysan lacagtiisa
lacagtiisa guban wuuna farxayaa. Mr Beast wuu la yaabayaa ninkan maskaxdiisa iyo sida uu mar walba lacagta u badbaadinayo. Markaana waxa uu leeyahay Mr Beast waxaa hari doonta wareegga dambe ee ugu dambeeya saddexaad. Haddii aad lacagtaada badbaadsato markaan waxaad qaadan doontaa $500,000. Mr Beast waxa uu dhahayaa wareeggan waxaa samayn doonaa baabuur holcaya ayaa waxa kusoo dhex tuuri doonaa lacagta. Wax walba oo aad dhisatidne waxa hubaa inay gubanayso. Wiilkana waxa uu dhahayaa markaan waxa hubaa inaan lacagteeda badbaadi karo aanu ku guuleysan karo $500,000. Mr Beast waxa uu dhahayaa markaan aad ayuu u awood badan yahay waxa aad sameynaya. Haddii aad awooddaas ka hortagi kartana waa arkaynaa. Wiilkana mar kale waxa uu la shaqeynayaa injineerada waxaanu isku dayayaa inuu dhisto meeshii hore ka adag. Kadibna waxa uu sameynayaa mar labaad waxa uu soo gadanayaa baabuur iyo konteenaro waaweyn. Waxa uuna dhahayaa konteenarada dhinaca loo seexiyo dabka markii uu ku soo dhaco baabuurka si uu uga dhaco. Mr Beast waxa uu diyaarinayaa baabuuro waaweyn oo asna ku jiro gaas iyo dab. Waxa uuna dhahayaa markaan waxaa rabaa lacagta inay ninkan ka gubato oo aan ku guuleysto. Challenge-gan aad ayuu u adag yahay. Wiilkaana waxa uu mar labaad la shaqeynayaa injineerada waxa uuna leeyahay waxaan ku guuleysan doonaa lacagtan si walba ay noqoto. Daawadahayga markaan qof walba waxa uu isku diyaarinayaa inuu dhisto meel xoog badan. Mr Beast sidoo kale waxa uu isku diyaarinayaa asna inuu dhisto gaariyaal xoog badan oo gubi kara lacagtaas. Sidoo kale gaariyaasha waxa uu dhex dhigayaa baasiin iyo wax walba. Wiilkana markaan waxaa loo sheegayaa inuu 1 daqiiqo haysto waxa uu rusheynayaa goobta. Kadibna si qaldan ayuu wuxuu biyo ugu shubayaa Mr Beast. Mr Beast waxa uu dhahayaa markaan maadaama biyo ay ugu shubto ma kuu naxariisan doono oo lacagta waa kaa gubi doonaa. Wejiga saddexaad ayaana la geli doonaa. Mr Beast waxa uu soo diyaarin doonaa 5 baabuur oo waaweyn oo qaraxyo iyo wax ku xiran. Waxaana lagu kor tuuri doonaa meesha ay lacagta taalo. Konteenarada korkooda ayaana lagu soo ridi doonaa. Mr Beast waa bilaabayaa ciyaarta. Waxa uuna soo tuurayaa 5 baabuur oo waaweyn oo mid walba gaas iyo bombooyin iyo wax walba ay ku jirto. Wiilkana markaan wuu isu kalsoon yahay inay lacagtiisa u badbaadi kartay in kale laakiin annaga ma ogiin. Lacagtuna waa $500,000. Haddii uu lacagtaas badbaadsado asaga ayaa qaadanayo. Laakiin haddii ay lacagtaas gubato wiilkaas wuu khasaarayaa. Waxaa guuleysanaya Mr Beast. Wiilkana waxaa la dhahayaa waxaa ku siinayaa kaar ay ku jirto $500,000 haddii aad badbaadsato lacagtaas. Kadibna Mr Beast iyo wiilku waxa ay wada daawanayaan iyo asxaabtiisaba. Kadibna Mr Beast iyo asxaabtiisa waxay wada daawanayaan baabuur oo dabka lagu soo tuurayo. Wiilkina waxa uu markaan ku rajo weyn yahay inay lacagtiisa u badbaadayso. Laakiin ma u maleynayo maadaama Mr Beast mar walba geemka ugu dambeeyo uu aad u soo adkeeyo. Waxa u maleynaya wiilka in mar walba laga guuleysan doono. Wiilkana waxa uu arkayaa dab xooggan oo meesha ka kacday. Murugo ayuuna dareemayaa. Markaana wuxuu isdhahayaa lacagtaada ma kuu badbaadayso. Waxa uuna aadayaa goobta. Waxa uuna isku dayayaa inuu soo fiiriyo laakiin dab xooggan ayaa ka socda. Kadibna Mr Beast ayaa u sheegaya markaan inay macquul ahayn inay lacagtiisa badbaado. Wiilkina waxa uu tagayaa meesha ay lacagta taalay. Wuuna fiirinayaa laakiin markaan lacagtu way gubanaysaa. Mr Beast waxa uu sheegayaa inuu Mr Beast mar walba geemka ugu dambeeyo soo adkeeyo aan laga guuleysan karin. Wiilkina murugo ayuu dareemayaa oo aad ayuu u niyadjabaya. Wuxuu isdhahay $500,000 waa ku guuleysan kartaa. Laakiin wiilkii waa laga guuleystay. Mr Beast waxa uu sheegayaa inaan laga guuleysan karin. Wiilkina aad ayuu u niyadjabayaa wuuna murugoonayaa. Daawadahayga Mr Beast waxa uu dhahayaa haddii geemkan aan kaa guuleystay waxa ku siinayaa $100,000. Kadibna waxa kugu casuumi doonaa geemkan geemam kale oo fara badan haddii aad guuleysan kartid maadaama aad maskax leedahay. Saaxiibada Mr Beast wiilku u wada mahadcelinayaan. Waxaanu noqon doonaa geemkan mid sii socon doono. Haddii aad halkan ku cusub tahay fadlan channelkeena subscribe noo saar oo na dhiirigeli si aan muuqaaladan oo kale mar walba u soo gudbino. Aad ayaa u mahadsantahay. Like na saar muuqaalkan. Commentigana ka soo dhiibay aragtidaada haddii aad jeceshahay muuqaaladan oo kale inaan soo gudbino. Aad ayaa u mahadsantahay daawadahayga.